waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa Qarannimo TV. warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khilaafkii u dhaxeeyay dowladaha Khaliijka kadib markii ay dowladda Mareykanku si cad isu garab taagtay dowladda Qatar. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay gelinkii dambe warbixinteeda wasaaraddeeda arrimaha dibadda. Warbixinteeda sanadlaha ah ayaana lagu sheegay inaanay jirin haba yaraatee wax calaamado tilmaamayo inay Qatar taageerto argagixisada. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in khilaafka wadamada Khaliijka u dhaxeeya ay sababtay kadib markii dowladda Imaaraadku ay si ula kac ah u faragelisay ama ay u jabsatay xarumaha warbaahinta wadanka Qatar. dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadku ay hogaaminayeen ee Qatar go'doominayay ayaa noqday kuwo sixirkii ay soo maleegeen iyaga uu ku gadoomay. dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay argagixisadu isticmaasho xarumaha maaliyadda ee ku yaala wadanka Imaaraadka, sidoo kalena dowladda Imaaraadku aanay waxba ka qabanin. dowladda Sacuudiga ayaa lagu tuhmayaa inay si weyn u taageerto argagixisada sida ay sheegayaan warbixinadii ugu dambeeyay iyo baadhitaano ay sameysay MI5ta wadanka Ingiriiska. dowladda Mareykanka ayaa gebi ahaanba waxba kama jiraan kasoo qaaday waxyaabaha lagu haysta wadanka Qatar, waxayna sheegtay in looga gol leeyahay oo kaliya in lagu waxyeeleeyo xiriirka taariikhiga ee u dhaxeeya Qatar iyo dowladda Mareykanka. saxaafadda Mareykanka ayaa si xun u fadeexeynaysay wadanka Imaaraadka oo noqday laacib gobolka Bariga Dhexe fitno ka wado isla markaana dab ku ciyaarayo. si kastaba ha ahaatee